reerkiinuna waa 18 qof ummadda iska daa 18 qof baa inta xaquuq doonaysa boqolaal kun baanu ka aamusanahay wixii doonaa ku dhacaya war ummadda iska daa ummadda la kaaga xayo ummadda dadka oo xildhibaanadan xaq u lahayn baa lagu siiyay Ismaan Ibrahim baa la xildhibaanka qaadatay awra maleeyo riig hayay baa lahaa xildhibaanka qaadatay xaqna uma leh waana laga qaadaya anaa ku tusaya inaan ka qaado anigu reer kulbeer baa ku yaqaan oo aan ku soo direynaa haddaan cid kale weyno adiga aabaha reer kulbeer baa yaqaan oo aan u soo direynaa bismillahir rahmaanir rahiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waxaan salaamayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan kuwa reer waqooyi bari aan sii salaamayaa waxaan arkayay sawirkaygii oo cod la soo saaray feega oo magaalada ay dhulka la wareegayo warbaahinta la wareegayo oo ka khaldamayo saddex sawir oo marba aan dhar gaar gashanahay la soo saarayo ilaa waxaan jirin oo feega waxaan ku horeynayaa ninka odayga oo caadaystay inuu ummadda been ka sheego oo dhaqanka caayo oo maamulada caayo oo dawladda Soomaaliyeed caayo waxaan ku leeyahay war cimri baa joogtay waxba kuma harin ummadda iska daa oo hadda wax ka shaqaynayso wax khayr ka shaqay xaalad iyo balaayo iyo dad la xiray iyo dad la qafaashay masiiba inta ka sheekayna waxaad ka shaqaysaa wax wanaagsan bal ka sheekay inkastoo aadan day karo dad lacag ku qaadato xumaanta un baa lacag ku qaadato waxaan ku ballan qaadaya aragti way noo ballan adiga oo igu ballan adiga laba indhood baan ka ballana Maxamuud Cali Shiro Meeyda maag oo Cabdisalaam baa maag oo Saciid Cabdisalaam baa maag oo Warsagali baa maag oo Khaatuma maag oo dawladda Soomaaliya maag oo waqooyi war adigu war ummadda iska daa reerkiinuna waa 18 qof ummadda iska daa 18 qof baa inta xaquuq doonaysa boqolaal kun baanu ka aamusanahay wixii doonaa ku dhacaya war ummadda iska daa ummadda la kaaga xayo ummadda dadka oo xildhibaanadan xaq u lahayn baa lagu siiyay Ismaan Ibrahim baa la xildhibaanka qaadatay awra maleeyo riig hayay baa lahaa xildhibaanka qaadatay aadan yaquub baa lahaa maxaa u keenaysaa xaqna uma leh waana laga qaadaya anaa ku tusaya inaan ka qaado anigu oo igu ballan inaadan mardama ku fariisan sabnikii ergada reeray maaydo qiraalka oo baraha bulshada ka sheegay adiga qodobka intaasan kaga tagay waxaan kaloo sheegaya aniga waxaan joogaa Laascaanood caasimadda waqooyi bari annagu dad meel ka yimi maahin annagu dad deegaankoodii joogaanna hal iska daayo waxa aan qiimo lahayn oo beenta oo feega oo shaqada laga dhigtay hal iska daayo ninka la yaashiin culaya markay shalay iyo ninka la yiraahdo ii sheeg kabtalayuun horta magacayga waa hadda soo qaadeen soon bay gu waajiba soon aan soomo soon baa waajibigu mar hadda magacayga soo qaadeen inaan soomo baa waajibigu kabtalayuun waxaan gaar u leeyahay kabtalayuun halkan waa meeshii ay kugu soo dhaweysay half milyuunka qof adoo isbiirtoola ah oo ay ku garanayaan bay halkan half milyuun baa kugu soo dhaweysay Laascaanood waa ku karaamaysay dhaqaalaha lagu siiyey maqaam qof lagu soo dhaweeyay kan ugu weyn baa lagu soo dhaweeyay waxa la yiri qofka abaal dhaca wuxuu ka ixtiraam leeyahay diiniyan
eygu ka ixtiraam liitaa qofka abaaldhaca oo ummadda ka abaaldhaca annagu abaaldhici mayno booliiska waqooyi bari jooga haddii la yidhaahdo faarax soo qabta ma yeelayaan kana abaaldhici mayno beenna ka sheegi maayo ma yeelayaan inkastoo qof kasta sharcigu ka sarreeyo qof yar iyo qof weyn ixtiraamka aan ku haysanno waqooyi bari iyo laascaanood ku haysanno meelaan adduunka ku haystaa ma jirto waxna waa kuu sheegaya maamula kanu habar meel istaagta iyo isbiirtoole meel ka hadla iyo adeer waa dhaafay baan ku yidhi waa dhaafay cumar maxamuudna wax lagu oran maayo maxamed hartina wax ku oran mayno laakiin waa saaqidnimo dhaaftay saaqidnimo dhaaf baa noqotay saaqidnimadii baa dhaaftay wax saaqidnimadii ka sarreeya baa noqotay oo bini aadanka caaya oo gafa oo aan ilaah aqoon oo diin lahayn baa tahay qofka diintaa celisa ama akhlaaqiyaadka guriga uu ku koray baa celiya midna ma lihid adigu yaa reer kulbeer baa ku yaqaan oo aanu kuu soo diraynaa haddaannu cid kala weyno adiga aabbahaaba reer kulbeer baa yaqaan oo aanu u soo diraynaa haddaadan akhlaaqiyaad ka yeelan maamulka iyaga iyo akhlaaqdayada iyo afaaraha iyaga haddaadan ka yeelan nin reer kulbeer aanu lacag u dirro miyaannu waayaynaa oo halkii aabbaha uu mariye ku mariya ka bax magacaygana mar dambe ma soo qaadi kartid 2 maalmoodna waa soomayaa calaashaan qaadistaadi soo qaaday salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu